hub noocee ah ayaa saaran markabka la duligay Iiraan ee laga baqayo inuu weeraro. Markabkan dagaalka oo leh dhabaha diyaarado ku cararan ayaa waxaa saaran diyaaradaha nooca loo yaqaan F-35 iyo F-18 Hornet sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP. Markabka USS Abraham Lincoln iyo 3 markab oo kale oo dagaal ayaa la sheegay inay kusii jeedaan bariga dhexe iyaga oo wada kumanaan askarta Mareykanka ah. Waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in markabka uu ku hubaysan gantaalo kala duwan oo ka mid yahay gantaalka lagu magacaabo Narrow Sea Sparrow iyo nidaamka difaaca gantaalaha. Markabkan dhererkiisu yahay 332 mitir USS Abraham Lincoln iyo xabaarsan loo yaqaan Fanagas-ka oo awooda inuu weeraro maraakiib kale. Fanagas ayaa hub u haga nidaam kombiyuutar oo ku shaqeeya raadaar. Markabka ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu ku rakiban yahay habka gantaalaha ee loo yaqaan RAM. USS Abraham Lincoln oo ah mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee ugu waaweyn Mareykanka ayaa ku qalabaysan hubka kale oo badan iyo nidaamka raadaarka.